waxaa heer gabagabo amaraya heshiiska Saciid Cabdullaahi Dani waa madaxweynaha maamulka Puntland iyo sidoo kale Axmed Maxamed Islaan Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyay ila wareediyo ayna heleen ay sheegayeen in maalmihii ugu dambeeyay ay heshiis qarsooni ah u socday iyadoo haatan hay u dhowdahay in la shaaciyo heshiiska ay gaareen labada maamul ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa soo kala dhaxgalay khilaaf siyaasadeed oo baahsan kaas oo dhaliyay in aysan ka soo qayb galin shirarka iyo sidoo kale in aysan labada maamul isku laab furneen ama ay wada shaqeyneen Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani ayaa inta badan waxay ka sinaayeen kor imaanida iyo sidoo kale in ay uba bacdigaan dawladda federaalka Soomaaliya heshiisyada iyo sidoo kale hanaanka sharciyeed ee ay soo saartay inta badan iyagoo qaadaca ama diida si isku mid ah labada dhinac ayaa haatan u muuqda inay isku soo dhawaadeen sidoo kalena ay heshiis gaari rabaan waxay dhawaan ku kulmi rabaan sida la xaqiijiyay magaalada Nairobi ee caasimada Kenya halkaas oo ay la doonayeen in labada dhinac ay heshiis ku gaaraan sidoo kalena loo soo bandhiga media si kastaba Axmed Madoobe ayaa la filayaa in dhawaan caleemo saaro iyadoo xaflad balaaran la filayo in looga dhigo magaalada Nairobi sidoo kale Kismaayo beesha caalamka ayaa sidoo kale iyadana dhinaceeda ka qaadanaysa dhexdhexaadin xoog leh Axmed Madoobe iyo sidoo kale Xasan Sheekh inay mar kale dib isugu soo celiso sidoo kalena Axmed Madoobe uu ku soo laabto saaxada wada hadalka dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale heshiiska ay dawladda federaalka Soomaaliya dhawaan ku baaqday taas oo ay sidoo kalena aqbaleen in ay ka soo qayb galaan madaxda mucaaradka ay ugu horeeyaan madaxweynihii hore ee dawladda ku meelgaarka ahayd Shariif Sheekh Axmed saaxatay Axmed Madoobe ayaa sidoo kale dhawaan la filayaa in lagu caleemo saar balaaran loo dhigo mana hubo in dawladda federaalka Soomaaliya qaabka ay wajihi doonto caleemo saarka iyo sidoo kale maamuuska loo sameeyo doono dhawaan madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland Axmed Madoobe si kastaba Axmed Madoobe ayaa dhinaca kale la filayaa in dhawaan uu duulo dhinaca iyo magaalada Nairobi isagoo sii mari doona Mandheera oo ah xuduudda Soomaaliya iyo Kenya halkaas oo wafdi balaaran oo ka socda beesha caalamka ay halkaasina kula kulmi doonaan Axmed Madoobe waxa dhinaca kale soo cusboonaaday dagaalada iyo sidoo kale khilaaf siyaasadeed oo hareeyay magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gedo iyo sidoo kale Garbaharre Gado ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waxa ku dagaalamayay dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada iyo sidoo kale Axmed Madoobe haatan ayaa mar kale waxa soo cusboonaaday dagaalkaasi u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya ay ku hardamayaan gobolkaasi Gado magaalada Balad Xaawe ayaa shalay waxa laga maqlay rasaal teelteel ah taas oo aan saa u balaarneen iyadoo markii dambana ay dawladda federaalka Soomaaliya sheegtay in ay u yimaadeen ciidamadaasi xabadaha soo riday dhinaca iyo magaalada Doolow ee xuduudda mas'uuliyiinta magaalada Doolow maysan xaqiijinin xabadahaasi ay dawladda ku eedeysay sidoo kale rabshadahaasi ka dhacay magaalada Balad Xaawe ee gobolkaasi Gado Axmed Madoobe ayaa dhinaca kale wajahayay culays siyaasadeed oo ka haystay gobolkaasi Gado iyadoo Gado ay kala qaybsaneed dhinac Doolow oo dhinaca Balad Xaawe iyo sidoo kale Garbaharre iyagoo dagaalo culus oo dhimasho iyo dhaawac sababay ay ka dhaceen magaalada Baardheere Balad Xaawe iyo sidoo kale Doolow inta ay ku hardamayaan gacan ku haynta maamuladaasi iyadoo laba maamul oo isdiidan ay soo kala magacaabeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo Axmed Madoobe oo hoos yimaado maamulada gobolkaasi Gado xiisada siyaasadeed ee ka soo cusboonaatay Gado iyo u dhaxayso dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland oo dhinacaya wali la saadaali karin xaaladda sida ay noqon doonto iyo sidoo kale caleemo saarka Axmed Madoobe oo dhawaan la filayay inuu isagana dhaco waxa sidoo kale laga dhur sugayaa Axmed Madoobe iyo sidoo kale Saciid Cabdullaahi Dani heshiiska ay soo saari doonaan iyo sidoo kale wada shaqeynta iyo dib u soo laabashada maamulada Garowe iyo Kismaayo